cabdirasaaq khaliif axmed oo ku qaban lahaa magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya kulan warbaahineed ayaa laga baajiyay waxaana uu muddooyinkii ugu dambeysay qorsheynayay qodobo dhowr ah oo uu kursigiisii ugu soo laabanayo isaga oo shax cajiiba ciyaaraya oo uu labada dhinacba ku raali geliyo Itoobiya oo gacasaar dhow Somaliland la leh sida oo kalena dirisnimo iyo cilaaqaad ganacsi uu ka dhaxayo ayaana waxa ay iska hortaagtay kulan warbaahineedkiisa uu qaban lahaa hase yeeshee ila wareedyo ka agdhow mas'uulkan u dhuun daloolaha ayaa waxa ay nagu soo simeen qodobadii uu ka hadli lahaa waxaana aynu ku soo koobi doonaa warbixinteena mas'uulkii miisaanka dawladnimo ee Somaliland ka ahaa ninka saddexaad oo muddooyinkii ugu dambeysay dabadmeer ahaa ayaa waxa uu ku biyo shubtay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya halkaasi oo uu kulamo dhowr kula galay madax dhaqameed sida oo kale mas'uuliyiinta xisbigii uu ka soo baxay wadani iyadoo talooyinka shakhsiyadeed ay siiyeen ay ka mid ahayd inuu ku soo jaantoosiyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo ah musharax madaxweyne xisbiga wadani waxaana ay ka soo wada degi lahaayeen magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland hase yeeshee shacabka ayaa aad ugu kacsan mas'uulkan weerihii uu ka jeediyay magaalada Laascaanood ee ku taageerayay deegaankiisa ayaana waxa uu ku lumiyay taageerayaashii ugu badnaa oo guud ahaanba gobolada Somaliland kala jooga kuwaasi oo uu sheegay in laga doortay gobolkan oo kaliya isaga oo ka soo qaaday inuu xildhibaan golaha wakiilada ka tirsanaha sida oo kalena waxa uu sameeyay sharci jabin iyo dastuurka jamhuuriyadda Somaliland oo ku xadgudbay xukuumadda ayaana sheegtay shaqadooda inay ka qabsan doonaan golaha wakiilada sida oo kalena maxkamad la saari doono shakhsigan khaliif oo ka maagay imaatinka magaalada Hargeysa kuna soo dhiiran waayay ayaa waxa uu damcay inuu shir jaraa'id ku qabto magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya waxaana uu Mr. Khaliif dhiirigelin lahaa deegaankiisa bariga Sool oo ganafka ku dhuftay dadaaladii ay dawladda Itoobiya ka dhex waday Somaliland isagoo ku dadaalaya inaanu lumin taageerayaasha uu ku leeyahay gudaha Somaliland iyo sida oo kale xildhibaanada tirada yar ee golaha wakiilada uu ku haysto mas'uulkan ayaa xukuumadda Somaliland madaxweyne ku-xigeenka oo afkeeda ku hadlayay waxa uu sheegay in laga rabo cadeymo dheenaad ah weerihii uu ka jeediyay magaalada Laascaanood kuwaasi oo dhammaantood ahaa mala awaal iyo kuwa aan sal adag ku taagnayn marka loo eego xaqiiqadooda iyo sida ay wax uga jiraan waxaana uu weli ku sii adkaysanayaa shakhsiga kani inuu taageero deegaankiisa bariga Sool kaasi oo waqtigan xaadirka ah nabadgelyada iyo ka soo horjeestay waanta halkaasi laga waday iyadoo aan ilaa iyo hadda la garanayn meesha ay u dhaqaaqi doonaan hase yeeshee isu diyaarinaya inay qalalaase iyo xasilooni darro ka abuuraan gobolka Sool madax dhaqameedka oo si weyn isaga soo horjeeda ayaa ila wareedyadu waxa ay nagu soo simayaan Cabdirasaaq Khaliif inuu ku dadaalayo isu soo dhaweyntooda dawladda federaalka ah ee Itoobiya iyo Somaliland oo arrimahaasi si gaar ah uga wada hadlay ayaa ila wareedyadu waxa ay noo xaqiijiyeen inay Somaliland ka codsatay cid kasta oo mucaarad ku ah xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo gudaha waddanka Itoobiya ku sugan in aanay ku tallaabsan karin tallaabooyin qarannimada midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Somaliland ka dhan ah maadaama uu ka dhaxayo labadan waddan heshiis nabadgelyo oo midba midka kale uu ku ilaalinayo sida oo kale wararku waxay intaasi ku darayaan inay codsatay dawladda Somaliland in lagu soo wareejiyo mucaaradka fog ee ku dhex dhuumaalaysanaya magaalada Addis Ababa iyo gudaha waddanka Itoobiya inkastoo aan weli la isla qaadan hase ahaatee qorshahan labada xukuumadood u dhaxeeya ee lagu ilaalinayo nabadgelyada iyo xasiloonida ayaa weli socda wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda tani ayaa ka dambeysay heshiis ay gaadheen dawladda Itoobiya iyo xukuumadda Somaliland oo wax lagaga qabanayo mucaaradka fog ee ku sugan magaalada Addis Ababa